barnaamijka maanta waxaa igala qayb qaadan doona hadduu eebeedmo gudoomiyaha beelaha Gabooye Cabdiraxmaan Colaad Maxamed. barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa daawadayaal hadduu eebeedmo sida aad la socotaan colaadad fara badan baa ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed qayb kastoo ay leeyihiin, balse waxa ugu sii daran baa la yiri dadka Gabooyaha dhibka ka haysta dalka Soomaaliyeed iyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya gudihiisa. kusoo dhawaad Colaad barnaamijka TV Soomaaliya Sat. waa mahadsantahay, waa ku dhawaad. Colaad waxaad soo bandhigtay oo aad nooga sheekaysay in dhibaatooyin fara badan ay haystaan dadka Gabooyaha. waxaa ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim. walaal su-aasha ay weydiisay haddaan kaaga jawaabo, lama soo koobi karayo dhibaatooyinka ka haysta waddanka Soomaaliya qabiiladan la isku yiraahdo beelaha Gabooye. waa dhibaatooyin aad u waaweyn oo soo jireen ah ilaa haddana jirta. dagaaladii sokeeye kadib iyo ka horba waxaan la soconnaa dowladdii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre in la aasay waxa la yiraahdaa qabiil ummadana ay sinaayeen. waxaad leedahay waxaa jiray dhibaato aniga lagu hayay. run ahaantii dowladdii xukuumaddii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay dhibaato waadax ah oo caddaan ah oo markaas la leeyahay dhinaca qabyaaladeed ayay ku salaysan tahay oo caddaan ah oo waadaxa ma jirin, laakiin way jirtay dhibaato hoosaad. macna dhibaatada waadaxa aad sheegaysa waa xagee ka timid? dhibaatada waadaxa ah waa midda hadda taagan. midii hore beelaha Gabooye laguma gumaadi jirin, qabiil ahaan laguma gumaadi jirin. ha iska jirto dhibaatooyin xagga isdhexgalka ah, xagga waxbarashada ah, xagga shaqooyinka ah, ha iska jirto. laakiin gumaad oo rasmiya oo loo geystay oo sida ay haddaba u bixiyeen looma ooyaan xilligii dagaal ka dambeeyey ma jirin xilligaas. horta dhibaatada dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya beel dhibaato soo gaarin ma jirin. maxaa idinka qaylisiyeen? beelaha aad sheegayso kulligood waxay ahaayeen beela hubaysan. beelaha Gabooye iskumay dayin in ay hub qaataan ama ay dad weeraraan ama ay isbaaro dhigtaan ama ay dad xoolahood dhacaan ama siyaasad usoo istaagaan. markii ay dagaalada dhaceen beelaha Gabooye nin walba meeshii uu ku noolaa ayuu ku salaystay, nin walba ciddii uu la deganaa ayuu ku salaystay uu hoos galay. waxaa dhacday dowlado badan oo ku meel gaara dalka Soomaaliya. dowladihii ku meel gaarka ahna wax loo qaybsaday si sinaan iyo cadaalad ah. ma wiidan waxba ka helin ninka cadaaladda iyo sinaantaas? wallaahi waa su-aal fiican. adoo haddaa sinaan u taqaano 4.5 anuu ma aqaan sinaan, waayo magacii loo bixiyey yaaba 4.5 ah oo walow annaga aan niraahdo 0.5 oo ayagana waxaan jirin aan ka soo qaadnay, annagana aan 5 iska soo qaadnay. macnaha waxaad leedahay dowladihii ku meel gaarka ah ee dalka soo maray haba yaraatee wax awooda iyo wax aan ku haysan ma jirto maalin. horta dowladaha ku meel gaarka dowlad jiray horta dowladaha ku meel gaarka aan ka dhex gale waxay bilowdeen xilligii Cabdullaahi Yuusuf. laga bilaabay xilligii Cabdullaahi Yuusuf ilaa xilligii Sheekh Shariif waxaa lagu soo jiray dowlad ku meel gaar ah. haddaba waxaan halkan ka caddaynay ku meel gaar Cali Mahdi baa laga soo bilaabay. waa shirkii Kenya lagu soo qabtay Imbagati waxaa lagu soo magacaabay Cabdullaahi Yuusuf. dowladda ku meel gaarka meeshaas ayaa lagu soo dhisay kow ilaa Sheekh Shariif. intaasoo dowladood oo is soo bedelay waxaan kuga caddaynayaa oo markhaati cad ma doontaana golaha wasiirada markii la sheego in aan la magacaabi karin hal wasiir ama hal wasiir ku-xigeen oo beelahaas Gabooye ay xaq u yeesheen ama la siiyey. baarlamaankii ayaaba ciriiri nagu ahaa. Colaad Soomaali oo dhan wasiiro ma qaybsato. wasiiraduna waa in kooban, Soomaalida waa dad aad iyo aad u fara badan.
haddii beel kasta ay tiraahdo innaga ma aynan wax ka helin wasiirnimadii Soomaaliya dowladii soo maray si cadaalad u noqonaysa markaa ma ummad wada wasiira yaa jiri kartaa waa wax wanaagsan beel aan ahayn beel aan wasiir yeelanin kuma jirto Soomaaliya waayo waxayba ku magacaabeenba 4.5 marka 5kii oo dhan markii golihii wasiirada laga qadiyay oo golihii wasiir ku-xigeenada laga qadiyay oo agaasimayaashii laga qadiyay oo diblomaasiyiintii qonsuliyadii iyo safaaradihii laga qadiyay oo generaaladii iyo dadkii ciidamada maamulaya laga qadiyay intaba iyadoo laga heli karo dad tacliintaas leh oo cilmigeeda leh oo hoggaankeeda leh xagee markay dowladdan hadda jirta haa waa helnay gole xildhibaaneed waa helnay aan helna gole xildhibaaneed tira nagu filan waa haysanaa haddii la yidhaaho gole xildhibaan waa dowladdan federaalka ah laakiin wixii ka horreeyey dowladihii ka horreeyey wax xildhibaano waad lahayd in ma jiraan waa lahayn waxaanu lahayn 2 xildhibaan ayaanu ku lahayn xildhibaan Kaynaan iyo xildhibaan kale ayaanu ku lahayn hadda waanu haysanaa nambar nagu filan xildhibaan laakiin dulamaad kale oo dhinaca golaha wasiirada ah ayaa ilaa hadda taagan ma dhibaatooyin kale oo jira tabanaysan jira marka laga soo tago dhinaca siyaasadda marka laga soo tago dee dhibaatooyin waaweyn ayaa beelahan gabooye haysta oo ilaa haddana la la'yahay wax ka saara ayagiina ay iska saari la'yihiin cilada marna waa ayaga marna waa Soomaalida kale ama xukuumadda ha noqoto ama shacabka ha noqdo okay khilaafaadka haddaan soo kala saarno Soomaaliya waxay u kala go'go'day maamul goboleedyo yay u kala go'go'day oo waxay noqotay dowlad federaal ah ama ha noqoto dowladdii ku meel gaarka ahayd oo federaal bilowday ama ha noqoto dowlad goboleedyada loo sameeyay Soomaaliya oo federaalka isugu yimaadeen waa kala duwan yihiin waxaa lagu magacaabay Puntland maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Galmudug iyo Muqdisho Banaadir haddaan kasoo bilaabo dhinacaas iyo Puntland ilaa xilligii maamul goboleedka Puntland la aasaasay oo dhowr madaxweyne ay isku soo bedeleen waxaa igu hubaal ah oon hubaa in hal xildhibaan iyo hal wasiir ku-xigeen aanu intaasoo sano aanu soo helnay oo weliba dowladdii hore oo middan Cabdiraxmaan Faroole ka horreysay aanu ku lahayn hal gabar oo wasiir ku-xigeenka caafimaadka lagu magacaabay iyo hal gabar oo xildhibaan lagu magacaabay intii la aasaasay dowlad goboleedka laakiin marka la fiiriyo dadka beelaha meeshaas degan marka loo qaybiyo kuraastii baarlamaanka iyo wasiirada loo qaybiyo haddii intii idinkaga soo aad wada hesheen okay waa dowladdaas waxaan ka helnay laakiin wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey midna gole xildhibaanna kuma lihin gole wasiirna kuma lihin gole wasiir ku-xigeenna kuma lihin waa maamul goboleedka Puntland marka la yiraahdo waxa ku soo haray maamul goboleedka Galmudug kuma haysano wax kursi ah ama nooguma badarin xisaabta beelaha gabooye oo dhan beelaha gabooye ma degaan beelaha gabooye waa degaan oo beelaha gabooye gobol aysan degin Soomaaliya ma jirto walow gobol walba ay qabiil u badan yihiin marka dulmaadka maxay ahayd maamul goboleedyada ka jira iyo dulamka ka jira Soomaaliya guud ahaanba beelaha gabooye xaqiiqdii aad iyo aad ay ugu dhibaataysan yihiin dhibaatadaas oo aanu rajeynayno inaan u duubano oo u halganno sidii looga saari lahaa dowlad kasta oo timaad dalka Soomaaliya waxay ku dhawaaqdaa ama ay dadka u sheegtaa ama dadka ay kula dhaqantaa in cadaalad halkaas laga sameyn doono marka cadaaladii la sameeyay ma aad leedahay waa lagu tunto cadaalad ma jirto wax cadaalad oo beelaha gabooye aan ku aragnay ma jirto aan ka soo tagno arrinta dhinacyada kale ma jiraan wax dhibaato ah oo haysta aad iyo aad laba qodob oo muhiim ah ayaa miiska ii saaran qodob koowaad markii aan ka soo bilaabo dhinaca Muqdisho
dowladdii ku meel gaarka ahayd oo Sheekh Shariif waxa ay bilaabeen xiriir waddanka Turkiga waxay ku guuleysteen in ay arday Soomaali maadaama waxbarasho fiican aysan Soomaaliya oolin ama Muqdisho oolin inay arday Soomaaliyeed geeyaan oo scholarship ama waxbarasho ay u geeyaan waddanka Turkiga number badan ayaa la qaaday waa dowladda ku meel gaarka ahayd oo Sheekh Shariif ardaydaas la qaaday saarabta u soo xaqiiqso wariya tahay cidda rabta la xiriir waxaan ku cadeynayaa hal arday oo beelaha gabooye ah inuu isku jiro waa laga soo tagay waxa dhalatay dowlad federaal ah oo dowlad salkeeda fadhida ah oo uu madaxweyne u yahay xasan waxay qaadeen arday yay Turkiga u qaadeen ardaydaas oo u kala baxda arday dugsi sare iyo arday jaamacadeed kadib markii aan la xiriiray xildhibaanadayada jooga Muqdisho ama salaadiinta jooga Muqdisho waxay ii cadeeyeen oo aan hubsaday oo aan Turkiga xataa la xiriiray dadkayga degan in hal arday oo beesha gabooyo ka socda aanu ku jirin ma waxa laga waayo wadanka raali ahaw ma waxa laga waayo wadanka arday u qalma arday gabooyo oo u qalma in waxbarasho la siiyo colaad waxbarashada marka ardayda loo dirayo beel lagu maqaado aqoonta ardaygaas uu leeyahay iyo waxbarasho loogu diraa beelo waxa lagu qaybsaday baarlamaankii waxbarashadii beel lagu qaybsan ma la is oran karaa arday ka soo baxay la waayay wixii looga baahnaa ma waxaad leedahay adigu beel dhan oo ka kooban 5 qabiil oo waaweyn ayaa waxa laga waayay 2 arday ama 3 arday oo u qalantay in ardayda loo qaado may waxa ku jiray meesha musuqmaasuq waxa ku jiray tuuganimo musuqmaasuqiina dowladda cusub oo federaalka ah ayaa soo ifbixisay waatan la xiray bari dhaweyto agaasimiyay wasaaradda waxbarashada oo lagu xukumay xukun dheer kadib markii la ogaaday inuu corruption ku sameeyay arday Turkiga daawadayaal waxa khadka telefoonka inoogu jira afayeenka Sultan afayeenka beelaha gabooye Sultan Kamal Hassan Salaad oo khadka telefoonka inoogu jira halo Sultan Kamal Hassan salaamu calaykum wa Soomaali Sat Kamal halkan waxa inala fadhiya gudoomiyaha beelaha gabooye ee Norway halka inala fadhiya Mr. Colaad waxaan rabnaa wax ka weydiino dhibaatooyinka lagu hayo dadka gabooyaha ah ee ku nool Soomaaliya wax ma noo sheegi kartaa Sultan waxaan nooga warantaa cadaaladii ma ka jirtaa baarlamaanka dadka ugu jira beesha gabooye xildhibaanada ku jira waa laba xildhibaan haddii la baaro oo hadda hoos loo fiiriyana waxa ay ku leeyihiin haba maraatay ma jirto laakiin waxaa mahadcelin iyo sharafta sare shacabka Soomaaliyeed ha ahaado kan Soomaaliya iyo Puntland intaba iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu arrimaha aad iyo aad uga ayaa aad iyo aad sharaf leh Sultan wax warama ka haysaa dhacdadii ka dhacday Boorame ka waraysan waana arrin booliya oo bareera ummadana loogu geersanayo daawaca loogu geysanayo sababta oo ah qofku waxaanu geli karin waxa uu geli karin inta waa macruuf marka ummadani waxaanay geli karin afkiisa aanay u ahayn iyo waxaa la rabaa in horta lagu dhaleeceeyo oo dusha laga saaro taasna waxaan qaadan karno
aanu caalamkana u sheegayno ummadana aanu gaarsiinayno in ay tahay arrin aad iyo aad u qalban. ma la xiriirteen beelaha gabooye ee degan halkaa? diinta joogta Soomaaliland ayaa tegay buuxala haya wararka sida nagu soo gaarayana waxa weeye way in dadka xiran qaarna sii daayo dadka xiranna wax dambiya oo ay maanta waadaxa oo lagu hayaa aan jirin bal laakiin ay isaga xiran yihiin wax mutaqaana awood sheegashaa ay xiran yihiin. suldaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay dib dambaan kula soo xiriir doona hadduu ilaahay yidhaha barnaamijyadeena kuwa xiga aad baad u mahadsan tahay. daawadayaalkaasi wuxuu ahaa afhayeenka suldaanka beelaha gabooye ee jooga magaalada muqdisho. dhowaan waxaanu khadka telefoonka kula xiriiri doonaa hadduu eebe idmo dad fara badan oo u dhun doleela waxyaabaha iyo dhibaatooyinka haysta beelaha gabooye ee ku nool dalka Soomaaliya. colaad dhacdooyin kale fara badan baa dhacatay oo haysta dadka gabooyaha ah. horta dhacdooyin hore waa iska soo jirtaa oo xilliyo hore ahaa oo gobonnimadii Soomaaliya markii qaadanaysay dhacdooyin dhacay ayaa jira oo waadaxa oo la yaqaan. nin ka mid ah beelaha gabooye ee Muqdisho deganaa ayaa xaafadda Hurdhigle wuxuu ku guursaday gabar Soomaaliyeed oo qabiilada kale ah. waxaa dhacday subax 4 saac subaxnimo iyadoo ah yaa ninkii waxaa la keenay suuqa xoolaha banaankiisa waxaana loo fiirsanayay sidii nin dambiila ama gacan ku dhiigla ah ficilka lagu dhaqaaqay. waa dawladii gacanka ka horreeyay waxaan ka hadlayo. ninkaas beesha tumaalada ayuu ahaa. waxaa dhacday in la keenay maxay ahayd suuqa xoolaha banaankiisa oo lagu heraarsaday oo daawasho loogu yimid ninkaas oo laga jaray sanka iyo labada dhagood. waa sheeko dhaba oo dhacday haraad raacaan TV-yada iyo raadiyaha. sababta loo dilayna waxay tahay waa gabar qabiil kale ayuu guursaday. colaad waxyaabo fara badan oo la baabi'iyay baa jirta. colaad okay dhibaatooyin ummadda Soomaaliyeed macnaha beel ee dhib soo marin haba yaraatee ma jirto marka arrimaha noocaas oo kale laga hadlayo. laakiin waxyaabo kale oo gaar ah miyay jiraan oo hadda aad tabanaysaan xilliga maanta la joogo? haa mid taagan hadda ayaa jirta oo aan rabno inaan aada uga cabaadno ugana cabadno aanan ka codsanayno maamulka iyo mas-uuliyiinta arrintaas ay hoos taallo inay si xaq u eegaan. waana wax cad oo aan halkan idinku hayo. halkan waxaa yaala nuqul ka mid ah xukun ka dhacay Somaliland khaasatan maxkamadda awdal maxkamadda gobolka awdal xukun ka dhacay oo uu ku dhacay dad beelaha gabooye ah. waxaa dhacday muddo laga joogo 1 sano ayaa waxaa dhacday gabar gabooye ah oo degan magaalada la yiraahdo Boorame iyo wiil beelaha degan Boorame oo aan gabooye ahayn inay isjeclaadeen oo sheeko jecel ay dhex martay ay gaareen heer ay isku waafaqaan inay isguursadaan. kadib wiilka reerihiisa markay maqleen ninkan in uu u hunguriyooday gabar gabooye ah ay wiilkii cadaadi saareen ay yiraahdeen ma annagaad maanta noo keenaysaa gabar midgaana. wiilkii jacaylka uu gabadh u qaba darteed ayaa ka weynaaday sida xaqiiqda ah. wuxuu tegey meelaha lagu iibiyo benziinka wuxuu soo iibsaday baa la yiri benziin laamiga dhexdiisa ayuu benziinkii intuu isku rusheeyay ayuu isgubay. isla markii uu asaga nafsadiisa iska qaaday oo uu isgubay ayaa waxaa la soo xiray 6 qof oo kala qabiilo ah oo beelaha gabooye ah. 6 qof waxaa ku jira gabadhii uu wiilka jeclaa oo 16 jir ahayd aabaheed walaalkeed iyo 3 dhalinyaro kale ayaa la soo xiray oo kala qabiilo ah. waxaa loo soo xiray waxaa la yiri wiilkayaga idinkaa gubteen. marqaati ayay leedahay marqaati cad ayaa meesha joogay. dadka muddo badan ayaa waxay ku xirnaayeen gaal shiraha Boorame. dadkii la soo qabtay loo soo qabtay ninkan isgubay dadkii loo soo qabtay.
muddo badan markay xirnaayeen ilaa 10 bilood 12 bilood markay xirnaayeen oo aanu meel walba ka dacwoonay oo aanu meel walba ka rafanay ayaa xukun maxkamadeed dadkii ku dhacay xukunka maxkamadeed wuxuu dhacay 26 bishii 8aad 2012 ayuu dhacay wuxuuna ka dhacay maxkamadda awdal xukunkaas oo lagu fuliyay 4 qof oo ka mid ah dadkii xukunka dadkii loo haystay ficilkaas oo la sii daayay oo dambi lagu waayay iyo 2 qof oo 2 wiil oo wiil uu la dhashay gabadha iyo wiil kale oo qabiil kale ah dil lagu xukumay oo ilaa haddana dil ku xukuman kadib markii salaadiintayada aanu la xiriirnay abukaat maxay ahayd qareenadoodii ay noo cadeeyeen in ficilkan aan loo geysanin ninkan oo dadkan isaga xiran yihiin awood sheegasho salaadiintayadii waxay dacwadii gaarsiiyeen ilaa madaxweynaha Soomaaliland Siilaanyo wasiirka cadaaladda madaxweyne ku-xigeenkii intiiba way gaarsiiyeen ilaa haddana wax ficil oo laga qabtay ma jirto xukunkii oo cadna oo maxkamadda awdal ka soo baxayna waa kan waa shaabadii maxkamadda awdal waxaa lagu eedeeyay in ay iyaga ka dambeeyeen wiilka gubistiisa yaa lagu eedeeyay laakiin qareenkii dadka wuxuu cadeeyay qareenkii dadka intaan la gaarin caddayn ma loo hayaa in ayan iyaga gubin markhaati ma caddayn waa loo hayaa markhaati buuxa ayaa jira oo maxkamadda tegey oo caddeeyay inaysan iyaga gubin kow ilaa haddana waxaan ku caddaynayaa haddii aad doonto waad la xiriiri karaysaa boorame dadka dhibaatadan ay ku dhacdo waad la xiriiri karaysaa waxaad la xiriiri karaysaa qareenkoodii daawadayaal dhanka taleefonka waxaa inoogu jira qareenkii dadkaasi la xukumay amiin sheekh saciid sheekh xasan oo jooga magaalada boorame halow qareen ma maqlaysaa وعليكم السلام ورحمة الله قرين أمين شيخ سعيد شيخ حسن صوماها والله وحن كاسو وعيا صومالي سات تي في وحن نقلنا إن أدوبتها قرين ضد لو حرحري مقالة بورمي أنت اسم حاجة جرا أو ضد كاسمة dadkaas la heeb sooco oo adigu aad qareenka u tahay xukunka ku dhacay ma waxaad leedahay xukun qaldan baa ku dhacay wax markhaatiya ma loo hayaa dembiga iyaga inayna gelin waxa weeye in shakiga laga saaro oo cadeeya ayuu sharcigu dhigayaa ma garatay aad iyo aad balse siimay dirin maragyo badan baa la dhegeystay qof waan arkay inuu madareysa inamada lagu eedeynaya ficilkaa sameeyey lama helin ma garatay waa gartay meesha waxaa weye tuuba madareysa xarigu xukunka lagu gaaray soo ma garan aad iyo aad kacfaan baan u qaadnay may maqlaysaa waad maqlaya aad iyo aad waan ku maqlaya kacfaan baan u qaadnay adoo la guuray kacfaankii waktigii in la galaa kiiskii ilaa hadda lama jirin ma garan muddadii waxa weye waxay sii maraysaa 2 sanood ku dhadhowyahay soo markaas marka ninka ka sharciyaqaan ahaan qareen ahaan kiiska ayuu fadhiyin dembigaasi inayna qasin baan u qabaa marka sharciga loo eego ma garan aad iyo aad soo markaas marka waxa weye dee qaran amiri aan ku weydiiye macnaha inankan isaga isgubay la leeyahay markii uu isgubayay dad daawanayo goobjoog ka ahamiyay jiraan ma jirin maragyadan dhegeysanay 2 bay ahaayeen ma garatay aad iyo aad maragyadan dhegeysanay qof shaahid u ahaa oo sheegaya ma jiro oo magaraysa inamadaas inay falkaa galeen oo iyagu ay gubeen caddi maxkamadda horteeda lama arag inuu isaga isgubay wax soo cadeeyay ma jiraan markaa لكن محكمة مركز دكتور مدافع أفر شيء هو نوع عينه كم درسته مركزية عند جيسني وحنا وبدنا يروح دكتور كان يجيب كل شيء هو وحشين بلدي سمع كده بعد كده دكان ناس تقول يبيع قوة وفاق وكذا عين كده وسمع كده هذه
dukaankii iyo ninkii jaadka labadii maragooda waa la dhageystay annagu inankaas ololay umaan aragnayda caddeeye soo maadara aad iyo aad cid kasii wardaysay iyo cid agtiisa sare socotay oo na aragnayna ma jira bay soo maadara marka beer haddana inamada tunanka koowaad la tuhmay in ciidanka mustafa leilaa oo eedeysanaha koowaad loo haysto in falka sameeye loo haysto lagu tuusan yahay haddii lagu saacadii shaqada soo joogay wuxuu leeyahay daanti masharaha soo maadara aad iyo aad suuqiina arday buu ahaa iskuulkiisii baa laga soo qabtay oo garanaysaa nin yaro daayarna weyi soo ma garan taasina waxay kaa muujinaysaa dee qof dambi galay inuu iskuulka iyo waxaasi garanaysaa caqligii lama dhigayo soo ma garan maraakiiskaasi ilaa hadda waxaan kuu sheegayaa wax cadayna oo hore iyo gadaalba laga helay oo muujinaya inay eedeysanayaasha aan qareenka u ahay inay falkaa geysteen haba yaraatay ma jiro ma la xiriirteen marka dhanka dawladda ma la xiriirteen ma la socodsiiseen dhibaatooyinka haysta beelaha gabooye halkaa degan wallahi muxuu ahaa xidhiid waa la sameeyey kiiska raacsan baan u qaatay oo raacaankii lagu jebiyey ayay ahayd ma garatay iyo maaragtay maamulka gobolka maanta dhawin ogayaasha way sarkeen maadaama kiiskii dadkan si waanwaan in lagu eego waanwaantiina waxaad moodaa inay la hadayno bedelin soo ma garan inamadiina way isaga yihiin maxkamadda dee magaranaysaa waxay u taallaa maxkamadda inay raacaankii kiiska la qaado dadkaasi dee wixii cadayma lagu hayo lasoo dhigo ma garatay marka racfaanka intee bilood baan ka qaadan karnaan racfaanku muddo nagama dhigin in muddo 6 bilood ku siman racfaankooda uu yaalaa soo ma garan kiiskii in la socodsiiyo garsoorayaal muxuu ahaa laga soo magacaabay maxkamadda sare ee somalilandba ayaa soo gaadhay dhawaan boorama ma garatay aad iyo aad dhinacii kale ee dhibanaha sheeganayay waxay sheegeen inaanan adiga rakunayaan kiiskaasi garsoorayaashaasi u qaadi karin dadooda imaamku yidhi ma garatay aad iyo aad markaa maxkamadda sare iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland buu imika hor yaalaa ina go-aan ka qaatay kiiskaasi adwal kuuri aad intaale ku xidhnaadana dhibaato weyn dadka dhaqaala burbur fara badan baa ku dhacay cabsi fara badan baa ku dhacay dadkoo dadka la haysooca ma garatay aad iyo aad marka dhibaato way jirtaan kudaayan qareen baa ka ahay kiiskaasi anaa hayay awalkiisii ilaa akhirkiisii kiiskii intaana gacanta ku haya ma garatay waan gartay walaahibaasaan ku sheegaa doona aad iyo aad baad umahadsan tahay qareen amiin sheekh saciid sheekh xasan waan kula soo xiriiri doonaa hadduu eebe idmo iyo arrintaa meesha ku dambaysana dib dib baanu kaa wareysan doonaa aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay dhibaatooyinka dhacaya waa mid hadda uu noo cadeeyey qareenkii joogay magaalada boorame ma isku daydeen dadkiina warba joogga ah beelaha gabooye in aad wax ka qabataan dhibaatooyinka haystaan waanu isku daynay khaasatan kiiskan iminka hor yaalla oo maxkamadda awdal ay dadka sida gardarada loo xirxirtay qaarna dil lagu xukumay qaarna la sii daayay waanu isku daynay kadib markii loo dacwooday dowladda somaliland waxay go-aan ku gaadheen 5 qareen oo ka shaqeeya maxkamadda sare oo odayaala in loo diro boorame waxaana lagu soo wargeliyey 5tii qareen in kharashka annaga aan iska bixino ay ku tegayaan ay hodheel ku seexanayaan ay ku safrayaan qurba joog hadaan nahay lacagtii ayaan ururinay waanu shubnay 5tii qareen markay tageen meeshana isla markiiba hoteelka ayaa loogu yimid boorama ku yaala waxaana amar lagu siiyey inaanay dacwaddan soo dhexgelin dadkii dowladda somaliland wasaaradda cadaaladda somaliland ay soo dirtay iyagoo qanacsan ayaa ka laabtay oo ku laabtay marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda somaliland siilaanyo iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha intaba waxaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay qurba joogta gabooye waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in kiiskan si dhaqso ah aanu jawaab uga helno waayo dadkan qareenkoodii baa jooga markhaatiyaal cadcad uguma hayo sharciga somalilandna ma dhigayo markii aanu akhrisanay
in dad racfaan loo qaatay ay iska xirnaadaan intaasoo muddo ah maxkamaddii sarena ay dacwaddii hoos taallo. cadaalad baa ka jirta somaliland, maxkamad baa ka jirta, qareen baa jooga oo dadkii u doodaya jira oo halkii taagan. ma la oran karaa maxkamadda ka saxsan go-aankan ay gaartay arrinta uu qareen ka dhawaajiyay? kulley qareenka afkaaga ku warsatay oo anigu ma turjumo qareenkii. qareenkana waxa ay isxigaan inankii isgubay nin walaalkii ka hiilinaya ma jirto. waxaana nagu maqaalaa oo caddaatay qareenka dadkan gabooyaha oo beeshan aad tirahdaan lahayb sooco, cid lahayb sooco ma jirto. beeshan dulman ayaan anigu idhaahdaa. beesha laga tirada badan yahay cidna tirisa horta ma jirto. soomaaliya qabiiladaad cid tirisa male. in laga tira badan yahay iyo inay ayaga tira badan yihiin cid caddayn karaysa male. bayb lahayb soocayna ma jirto. soomaalida qaar waxay yidhaahdaan waa nala degaan, cid aan la degna male. waddanka soomaaliya inaan ugu soo horreyna ayaa taariikh ahaan lahaya oo anagana lala soo degay. beelahan dulman markii la yidhahdo somaliland golo wasiiray leedahay, xildhibaanay leedahay. hal xildhibaanan ku leenahay ma jirto, hal wasiiran ku leenahay ma jirto. iminka waxaana loo magacaabay hal arday. waxaa jirta somaliland beela wax laguma qaybsaday, xisbiba wax lagu qaybsadaa. wel soo ma dhici karto xisbigii idinka aad ku jirteen inuusan ku guuleysanin maamulkii meesha uu xisbi kale ku guuleystay? xisbi walba ha ahaado, xisbiga kulmiye oo waddanka haysta cid nooga badan male. siilaanyo markii la dooranayay hal nin oo gabooye oo xisbi kale ugu shubay ma jiro, waa yarya. ballanqaadyadii uu soo ballan qaadayna ilaa hadda wax adam ka hayna ma jirto. waanu haynaa, codkiisa waa duuban yahay. salaadiintayadii waa ka warqabaan, annagoo dhan baa ka warqabna. ballanqaadyadii maalinkii la dooranayay siilaanyo, madaxweynaha siilaanyo. wasiir qofka marka laga dhigayo waa in uu soo buuxiyaa waxyaaba fara badan looga baahan wasiirada xagga iska dhig. aqoon fara badan looga baahan soo buuxiyay ay noqonaysaa. marka ay noqoto golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka, marka ay soo gelayaanna qabiil lagu maana xisbi lagu yimid. inaad fahamtay ma baahnaya. annaga waxaan ku yidhi xisbiga kulmiye wax nooga badan doorasho ahaan ma jirto iyo hiila ahaan. ma soo sharaxdeen xisbiga kulmiye aad u soo gashaan baarlamaanka? xisbiga kulmiye yaa ballanqaadkii uu ballan qaada waxay ahayd in dowladdu wax nalaga siinayo haddii uu ku guulaystay siilaanyo. waanu ugu shubnay, dowladdii wax nalaga siin lahaana lagama hayo. somaliland waxaan u cadaynaynaa inayna weelka annagu ka buuxsanayn ee insha allahu tacaala ilaahay nala qabto inaanu iyaga shacbiga weelkiisa u buuxino ayaanu ku ma dhici kartaa dowlad kasta in la waayo qof u qalmo la siiyo? ma dhici karto. waa totally may mutacalimiin baa joogta, salaadiin baa joogta, boqoraa jooga, ugaasyaa jooga. ma u tartanteen inaad soo gashaan baarlamaanka? waa u tartanay. xisbi aynu uga tartamin, soo sharaxay, soo istaagay si uu u soo gala baarlamaanka. xisbi aynu uga tartamin ma jirto. xisbi aynu uga tartamin xisbiyada somaliland oo dhan ma jirto. marka taas waa mid u taal somaliland iyo beesha la degta, waa mid u taal ayaga. madaxweyne walba marka la dooranayo ha ahaato africa ha ahaato carabaha, waa iska caadi inuu ballanqaadyo sameeyo lagu doorto uu ka baxana. waa fahamsama. siilaanyo afcad baa laga hayaa. xaafad ay degan yihiin beelaha gabooye ee hargeysa, siilaanyo cagihiisu ku tegey, lugihiisu ku tegey, gaarigiisu ku tegey. beelaha gabooye ayuu dhex istaagay, wuxuu yidhi beesha gabooyaha i doorta, ballan baa ina kaga qaaday inaan cadaaladna sameeyo, kuraasna wixii ka siiyo. waqtigii oo nagu yar darteed marka hore waxaad magacaysaa Soomaali Sabtiya magaceen balan soo jeeday. waqtiga oo nagu yar darteed ugu dambeyn maxaad usoo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan? ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan usoo jeedinayaa kitaabka quraanka ay qaarna qaateen qaarna ka tageen inay ka baxaan. waayo waa lagu gaaloobayaa. ilaahay baa ayadiis ku sheegay, quraankiisa ku sheegay in kitaabka qaybna la qaato qaybna laga tago. qaybta laga tegay waa cadaalad darro ka taagan. cadaalad darradaas inay baabi'iyaan. waxaan ka codsanayaa culimaa diinka
soomaaliyeed meel walbay joogaan inay ka qayb qaataan halganka maxay ahayd dadkan dulamka dul saaran sida looga qaadi lahaa haddaan hal shay kuu sheego masaajidkan aanu ku nool waddankan aanu ku nool nahay Oslo 2006 waa sheeko cajiib ah goobjoog ma ahayn laakiin boqolaal qof oo aan warsaday ayaa i caddeeyeen oo wadaadda ka mid yihiin masaajidkan soomaalida ay leeyihiin oo tawfiiq la yiraahdo 2006 markay ahayd maalin jimco ah ayaa khudbadda waxaa la siiyey sheekh ka mid ah shiiqyada masaajidka tawfiiq hogaamiye ee Oslo sheekhu wuxuu ka yimid gobol ku yaala gobolada Soomaaliya ayuu markaas ka soo galay jinsiyad Norwegian ayuu leeyahay khudbadii ayuu qabsaday khudbadii markuu qabsaday wuxuu gudbiyay fariin uu ka waday gabar jiran oo ku jiran gobolkaas uu ka yimid gabadha oo xanuunsan ayuu wuxuu u raadinayay lacag tabarucaada si loo caawiyo khudbadii buu istaagay wuxuu sheegay gabadhii jirnidaysa ayuu sheegay wuxuu yiri gabadhaas oo la rabo dhiigga in laga bedelo oo kharashna aan haysanin wajiga ilaahay ayaan rabnaa inaa u kaalmaysaan khudbadiisi wuxuu kusoo gabagabeeyey waana war cad oo la hubo khudbadiisi wuxuu kusoo gabagabeeyey gabadhaas aan u raadinayno qaaraankana waa gabar migaana marka haddii masaajidadii ay gashay qabyaalad jeeday macna qof inaan macnaha tagto wax laga fiicayaa weeye qof ma aha ana meesha Soomaalidana wanaag iyo cadaalad iyo sinaan waa shaqo ka dhacda shaqeeyaan waxa dhici karta in hadalka sidoo ula jeeday iyo sida dadka ay u fahmeen aad kala duwan tahay maxaad gabagabo tala u soo jeedinaysaa gabagabo waxaan u soo jeedinayaa dadkan beelaha gabooye marka koowaad inay isku dubnaadaan haddana waan kuu sheegay waxaan ku yiri cilad iyaga dhinacooda ka socota yaa jirta oo dadka kalena ay naga faa'iideystaan cilada dhinaca iyaga ah waxay tahay beelaha gabooye waxay koobayeen qabiilo badan haddaan kuu tiriyo waa Madhibaanka waa qabiilka la yiraahdo Muuse Dariyaha waa qabiilka la yiraahdo Tumaalada waa qabiilka la yiraahdo Yibraha waa qabiilka la yiraahdo Yaxarada iyo wixii soo raaca iyagii dhexdoodii ayaa iskhilaafsan mararka qaarkood iyagii dhexdooda ayaa iscunaya iyagii dhexdooda ayaan isku ogolayn mid walaalkooda hadduu madaxa soo qaado qabiilka uu ka tirsan yahay maana qabiilada kale ayaa soo weeraraya horta bal waa inay ka soo baxaan mugdiga ay ku jiraan iyaga ay iska soo saaraan midda labaad waxaan ku guubaabinayaa oon u soo jeedinayaa in aanu ku dadaalno sidii ilmaha yaga aanu ugu dadaali lahayn in ay waxbarasho heer sare gaaraan qofka bini aadamka markuu wax barto war inanka gabooye ama inanta gabooye markay noqoto dhakhtarad ay jaamacad soo dhamayso ay dhakhtarad qalliin ay noqoto ummadii kale iyaga u baahan wuu baxayaa magicii xumaa oo lagu caayayay wuu baxayaa waayo waa qof loo baahan yahay waa qof ku qalaya wadnihii kaa qalaya indhihii kaa qalaya ku umulinaya masaajid imaamka ah jaamacad wax ka dhiga qareennimo bartay injineernimo bartay iyagii baa kuu baahan marka waa in aanu ku dadaalnaa sidii aanu ilmaha yaga aanu wax u bari lahayn oo aanu uga soo saari lahayn cilmi la-aanta lagu dareemayo waxaan u mahad celinayaa TV-ga Somaliset oo waraysigan aan jeclahay sida uu waxaan salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel walba ay joogaan waxaan salaamayaa dawladda federaalka madaxdeeda waxaan ka codsanayaa shirkii daraata dhamaaday oo ahaa shirka la yiraahdo cadaaladda inay ku dabaqaan qodobada ay ka soo saareen kuma jirin qodobka beelaha la haybsooco in ay dib ugu noqdaan aynu ku daraan aad iyo aad ma asantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Colaad Maxamed oo ah gudoomiyaha beeraha gabooye ee dalka Norway tan iyo inta aynu barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waa anigoo ah Maxamed Cali Axmed iyo saaxiibkay Kasriye Qaan